كليه والفعية مو ما شاء الله dadka oo macnaha agoominta oo dadkii oo maamooyinka agoomanka haysteen oo walaalaha mamcuud jaarati oo gacanta ku hayay ma sha Allah maanta soo gaarnay waxaan rabnaa inaan ku wareejino fariintii ama sadaqadii abil walba ugu tala gashay ee ku maareynayeen wax ay ku baraayeen ilmihii ay haystaan agoonta insha Allah wana maasantiin waxaan rabnaa xir kadib inaan ku wareejino بسم الله الرحمن الرحيم walaalaha mamcuud jaarati gargaarka agoonta ma sha Allah maamada waxay ka mid tahay dadkii gacanta ku haysatay ilmaha agoonta maanta waxaan soo gaarnay waxa ugu tala gashay maanta oo keeninay biilkii ugu tala gashay macna bil walba ay sii jirteen marka maamooyinkaas ka mid tahay marka wax yar waxa jiro macnaha oo xanuun ayada dhankeeda ah oo horna lagu soo gudbiyay arna marka si fasiixa in ay ku sheegno waxaan rajaynayaa in wax badan oo qaban doontaan maadaama ilmaheedii gacanta ku haysaan ayadana ay xanuunsan tahay saakina la ii sheegay in macnaha ay matagees ay xanuunsanayd soo samaa insha Allah marka maamul ku daawanayaan meesha ku xanuunaysa sida oo tobanaysa in uu gaarsiisaa rabnaa ha u sheegtid bismillaahir rahmaanir rahiim waxa ay xanuunayso caloosha iiga taala burada ilmahayga eber in ku aboonay ana siiga shaqaysan jiray hadda waa u shaqaysan laahay kasta yar oo inuu soo dhiibtiinaan dugsiyihii ijaarkii wixii aan ka maaraysa karaan sida maaraysta saakidan qoyan ba muslimka diriska quraacdii taa igu soo waxeesmeen waa u shaqaysan laahay waa siiga mataga aad iyo aad ii xanuunta dad dirisa taano i wada daawooyin yariis oo 4 bilood ay socay la dhahay igu soo qoray oo meesha dhacaan yar ee qaadaaliiri 4 bilood ay socay kaniiniyad saas ay tahay salaada taa waa ka dukan laahay batamiimaadkii wixii taa waa laahay oo waa ku cuni laahay meeshaas ay iiga taala hadda hadii aan ina aragtiin aan u baahan meeshaas iiga taala Allah wadnaha iiga haysataa salaada taa waa ka dukan laahay waxaan haysta male daawooyinkii taa la soo qoro qaybtooda igu kala go'een waa laahay marka isbitaal ma hor u tagtay marka isbitaal hadda daawooyin oo kaniinyaal 120 xabba iyo qalbijiyaal dadka loo dirisa iyo soo waxeesmeena afleedahay daawooyin isbitaal ina tagtay ma lagu dhahay buro ku tahay buro waa leedahay wala qali kara ma la marka 4 bilood ka bacdi qalin waaye leeyahay daawooyin ay soo siiyeen 4 bilood la cabaay marka isbitaal ma daawooyinkii wixii aan ku cabi lahaa daawooyinkii iga kala go'san qaybtooda ana haysan ana laba arno isku jirto waay ilaa ay 4 bil ay gaarayo daawada isticmaaladan haysanin laba hadana 4 bil kadib markii la gaaro qalinkii wixii oo qalin oo ku soo baxo alla dhahay si fiican marka insha Allah waxaan rajaynaynaa walaalaha mamcuud jaarati gargaarka agoonta insha Allah maamadan aad u xanuunsan tahay dib badanna wuu haastaa insha Allah waxaan rajaynaynaa in wax badan ku soo caabi doontaan maadaama ilmaheedii iyada dhashay awoon ay yihiin oo hadda gacanta ku haysaan ayadana waxa ka rajaynaa insha Allah inaad garab qaban doontaan oo wax badan ku saacidi doontaan waana maasantiin insha Allah Allah nisiiyana muraadkiina Allah sahlo walaalahay muslimiinta ina garab qabtiin aan u baahana garab qabta hooyo dhibanaan ahay ina garab qabtiin aan u baahana الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه تاريخ ضمانتا وشن إيطوان بشة الضباط لبض كن لباطني كوغا وحن جوغنا مقالة كسمايو كام لغو مقعاو كام قميني مينو كام قميني جوغنا وحن كحرق وحن مانتو هو حرق جريا ceelkan oo sadaqo jaariye ah oo loo waqfay Aaba Maxamuud Cali Sheekh waxaana u waqfay gabdhihiisa oo 4 ah waxaana u qodnay dadkan arkaysaan ee mudan ee biyo la'aan ahaa ayaga iyo afkooda nooga sheegi doono ceelkan iyo siday ugu diirsadeen ma magaca gaabay ceelkan ladin qoday seed u aragtaan seed ugu faa'iideysataan ma sha Allah waa ka nasan walay biyaha qadaan ba alaab ka dhaqanayna aan ku weysa qaadanayna sidii ceelkan ba noolo qoday intaan aad arkayso waa feersanahay biyahana baa hadda u feersanahay ma sha Allah haween hada imaan waa dhaansanayna casarka imaan waa dhaansanayna leelki marka imaan xeebta u dhownahay xeebta ma biyo ka soo dhaansanayna ma sha Allah intii soo dhiibto waxa leenahay khayr Ilaahay hasiya kaweena waa ka sugeena ceelka ma idinka celiyaa oo ma idin diidaa haween waa dhaansanaa haween imaan saas loo dhaansadaa Soomaa insha Allah maamadii ceelka aan qodnay hada wajigeeda hore u aragteen waa tan maama salaamu calaykum
هاي عيالك اللي جو قضي وقف كها يقول بالحالة دي سا الحمد لله رب العالمين شكرا وكنا يفسني عيالك مدي نو قضي أجر حسنات إلهي أكسيو آمين أنت برد جوغنا دان وكنا يفسني عيالك وكنا يفسني آمين إن شاء الله تعالى أبها سي لو وقفي أبا محمود علي الشيخ إلهي دنبي صادافو إلهي صدق جاري الله وديغو قبديه سوبحي أفرتان الله بركيه ubadkooda kuwii sidan oo kale sadaqa u bixi Allah ugu dhigo inta islaam Allah u naxariisto khaasatan aabahaas oo ceelkaasi loo bixiyay sadaqada jaariyada ah aniga maanta waa idin xarag jaray waa waqaf cid laga celin karo malahan dhaansada insha Allah ta'ala u duceeyo waxaan idin karaba kaliya in u duceysaan aabahaasi aaba maxamuud cali sheekh ilaahay dambiga sa dhaafo ilaahay jannada firdaws Allah geeyo sadaqa jaariya Allah ugu dhigo sida boorkaasi sadaqa jaariya aan ugu qor ilaahay ha u aqbalo idinkana kuwii dhaansado nabad ku dhaansa Allah idinka dhigo dhammaan shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa dadkani walaalihiina kaamkan wuxuu ka kooban yahay 100 iyo meeqa degan 135 qoys degan bac ma haystaan rafada iska jiro rafadahan raasan leeyihiin in la soo caawiyo kale oo xaafada dheer oo jirto oo dad waayeel oo inta imaan karan oo xaafadana ka dheer walo baan ceel kale Soomaa waa maqlaysan cid kasta cidii sadaqa jaariya waalidkeeda inuu u bixiso diyaar u ah insha Allah ta'ala anagoo muassasada Abu Bakr Sidiq waxaan ka ballan qaadaynaa sida ceelkaasi aan ugu qodnay aan u xarag jarno kale inaan idin ku xarag jarayno soo dadaala insha Allah ta'ala aabahaasna Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto Ilaahay sadaqa jaariya Allah ugu dhigo insha Allah ta'ala yaa u duceyno gabdhahaasina way maasan khayr Allah siiyo maamcuude jaarati oo insha Allah isoo gaarsiisana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakay hadeen ayada ahaan leen ma arki lahayn maamcuude jaaratina waan u hambalyeynaa oo waan u mahadcelinaynaa ayadana soo gaarsiisay ceelkaasi oo sabab ah in dadkaasi waqafka la baxayo aan maartay noo soo marisay Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhamaan ha barakeeyo wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in إن شاء الله تعالى واركزان دتكن waxay degan guryahan boosashka asar uma dhisno jeengad uma dhisno bacahaasi ay degan yihiin 135 qoys insha Allah ta'ala roob haduu yimaado waxay sheegay inay habeenka ay seexanaynin oo arkaysaan sidaas ay ceelkaasi loo dhaansado hal ceel lama kaafinayo ilaa 5 ceel 6 ceel bay u baahan yihiin insha Allah ta'ala walaalayaal oo soo sadaqaysto oo waalidkiina oo waalidiintiina oo soo baxsaday insha Allah ta'ala inaad si ceelkaas maanta gabdhahaas ugu qodeen arkaysaan magaciina iyo waalidkiina halkaas oo kale ugu qorno إلهي سبحانه وتعالى هيدين أقبله وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.